wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya in laba askari ay ku geeriyoodeen rasaas loo ridayay dabaaldega munaasabadda 26 Juun oo ah 60 sano guuradii ka soo wareegtay markii gobolada waqooyi ka xoroobeen gumaysigii Ingiriiska. goobta munaasabadda ka dhacaysay waxaa ku sugnaa madax ka tirsan maamulka Hirshabelle waxaana rasaasta badan ee la ridayay iyo geerida labada askari oo ka kala tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa hareemo cad ay sababtay cabsi xoogan oo soo wajahay madaxdii ku sugneed goobta munaasabaddu ka dhacaysay. ma jirto wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay laamaha amniga ee maamulka Hirshabelle oo la xiriira falkii xalay ay ku dhinteen labada askari xilli ay socotay munaasabadda dabaaldega 26 Juun taasoo xataa cabsi ku abuurtay dadka ku nool magaalada Jowhar oo sida ay sheegeen u qaatay rasaas dhacaysay mid dagaal ah. goobaha lagu xuso munaasabadaha lagu weyneynayo maalmaha xorriyadda dalkeena Soomaaliya ayaa waxaa ka mid dhaca inta badan khasaare ka dhasha rasaasta faraha badan ee ciidamadu ridayaan inta ay munaasabaduhu socdaan. waa Khaliif Raage, Hargeysa.